waxaanu tacsi u diraynaa haddaanu nahay deegaankaas reelelkase odayaashiisii culimadiisii maamulkiisii waxaanu diraynaa tacsi weyn oo ballaaran baanu diraynaa waxaanu u diraynaa eheladii iyo muslimiintii iyo ubadkii uu ka geeriyooday sheekh cali axmed faarax cali dheere uu ka geeriyooday baan diraynaa tacsi waana u ducaynaynaa sheekha waxaan leenahay ilaahay jannatulfirdowsa ha siiyo ilaahay jannatulfirdowsa ha siiyo inkastoo aan yoomul ciidkii kaga hadalnay oo maalintii ciidda ahayd aanu tacsidiisa iyo xogtiisaba diray haddana warkan waxaan rabnaa inaan si guud u sheegno mowqifka qabiilada culummada deegaanka haddaannu nahay deegaanka leelkase haddaannu nahay oo culimmadiisii nahay waa ceebaynaynaa falkaa fal xun oo shaniic ah oo munkar ah oo shareecada ku xun oo caqliga bini'aadamka ku xun ayuu falkaasi ahaa fal xun buu ahaa waxaa falkaasna aan u tiirinaynaa dadkii hay-adaha amniga ahaa ee joogay ee degmada gaalkacyo weliba qaybta galmudug xaafiiskii xiray oo ku noqnoqday ayaannu u tiirinaynaa annagana waxay naga galeen gaf haddaannu deegaanka dadkiisa nahay gaf bay naga galeen mayd bay noo keeneen mayd bay soo qaadeen oo soo safariyeen wax la arki jiray maaha waxa hore u dhacay ma aha bal caqligaa fiiriya mayd baa naloo keena oo nala soo dhexdhiga saa subaxdii lagu waraabis waa wax cajiiba waay ciddii halkaa lahayd oo ciidanka lahayd oo saraakiisha lahayd oo dawladaha ka tirsanayd ay hoos joogaan dadkaasaa falkaa iska leh falkaa dadkaasaa iska leh waxaan codsanaynaa ciddii awooddo oo awood ka sarraysa leh inaysan ka harin mid yar iyo mid weyn inaysan ka harine falkaa dadkii lahaa ay u ciqaabaan waxaan aad uga xunnahay oo mar labaad ka xunnahay falkaas in la soo qaaday oo nala dul keenay mayd walaalkaya ah oo shiikhaygiga inta la soo dilay in nala dul keeno waanu cambaaraynaynaa marka hore falka laftigiisa iyo foolxumaysaan cambaaraynaynaa marka labaadna waxaan cambaaraynaynaa in nala ku tufantiriyoodo taasoo loogu talagalay in dadka ehelka ah oo deegaankaa wada degan in la isku diro dhibaato laga dhex rido waxaan u aragnaa inay tahay arrintaas arrin foolxun oo aana qaban oo foolxumo ah waxaan rabnaa inaan tilmaamo falkaas dhacay oo shiiku ku dhintay kama turjumayo aanana uma aha nabaddii dhaawacu gaaray oo labada beeloodoo walaalaha ka dhaxaysay aana uma ah waannu ka ballansanayn muddo dheer nabaddii aannu ku wada joognay walaalahayo heshiiska aan ka gaarnay shil baa ka dambeeyey shilkaa ballan baan ka lahay ballankaasi wuxuu ahaa in cidday ku dhacdana isxakamayso ciddii wax gaysatayna ay waajibkii heshiisku ahaa ay ka soo baxdo waxaan ogeysiinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo midda gobolka Mudug iyo gobolka barbarkii uu ka dhintay ninkaasi isagoo naga wada dhintay in falkaasi yahay fal argagaxiso oo dhab ah inuu ahaa waxaan uga tacsiyaynaynaa ciddii gobolka Mudug joogtay barbarka Soomaalidu abtiris bay sheegatay oo ehelnimo iyo qaraabo dhow la ahayd si gaar aan uga tacsiyaynaynaa waxaan uga tacsiyaynaynaa ummadda gobolka Mudug joogta dhammaanteed waxaan kaloo u tacsiyaynaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba falkaasi waa fal aan ummadda dhacdooyinkii soo dhici jiray iyo dhacdadii dadkaani ku dhaqmi jiray aan ka turjumaynin meeshay leedahay waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha booliska xajaar iyo madaxweynaha iyo madaxweyne goboleedka qoorqoor axmed kaariye qoorqoor waxaan leenahay xaajadaas si dhab ah u galeen maslaxadaas meeshay jirta ha u dhigeen ciddii maanta isku gudubta waa waxbi'is weeye waxaan leenahay waa fal cusub oo la furay iyo bayj cusub oo la furay waxaan leenahay si arrintaasi u dhacdo inaydan u dhicinin mid ka dambaysa cadaaladda ha la waafajiyo xaqa ha la waafajiyo meeshay jirta ha loo dhigo mishinkaas iyo shilkaa lagu beegsaday sheekh cali waxaa lagu beegsaday amniga gobolka daris wanaagga dadka ehelka oo wada degan
waxaa lagu beegsaday dadka waxgalka bulshada u ahaa oo kulligood waxa la yiraahdo shirqoolkaasi uu saameynayo si adag ayaan u dhaleecaynaynaa oo u cambaaraynaynaa falkaas iyo ciddii soo abaabushay iyo ciddii fulisay iyo ciddii ka qayb qaadatay sida maxaan ku yiraahdaa culimada iyo maxaan ku yiraahdaa dhaqanku ay u codsadeen baan u codsanaynaa baaritaan xalaal ah oo dadka faa iyo awood u leh inay arrinta baaraan meel kasto ay lagu la gashaan la daba galo sababtoo ah Sheekh Cali wuu dhintay laakiin falkaasi wuxuu khatar ku yahay gobolka oo dhan